dhawaad muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa sida ChatGPT uu kaaga caawin karo inaad kusoo biirtid cryptocurrencies dhamaadka sanadkan 2025 qorshayaal badan oo waxaa laga yaabaa sanadkan aad dejisatay oo aad ka mid tahay cryptoda inay suuli kuu suurtagelin laakiin muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa ama si kooban aan u sharxi doonaa sida ChatGPT uu kaaga caawin karo inaad crypto faham ka qaadatid aqoon aad u yeelatid kahor inta aadan ku biirin ama aadan maalgashan adiga oo aan aqoon fiican u lahayn marka hore horta waxaan eegaynaa dhowr website oo cryptocurrencies xogtooda ka heshatid iyo mar walba dhacdooyin lagu soo daabaco oo cryptoda ku saabsan cryptodan aad ka baratid websiteyada waxaa uga caansan websiteka la yiraahdo CoinMarketCap wuxuu badanaa uu ka hadlaa xogta cryptocurrencieska iyo sidoo kale fear and greed waxaa loo yaqaano oo ah in suuqa cabsi badan ay ka jirto in suuqu hoos dhacsan yahay kala horeynta koonanka markaas ugu sareeya ee dhinaca kala iibsiga hadday noqoto iyo wax loo yaqaano marka cryptocurrencies kala joogo gainers ama koonanka ugu sareeya sidoo kale hadda halkan ka arkaysa CoinMarketCap markaas oo gasho waxaa arkaya sida ay koonanka u kala sareeyaan Bitcoin always waa ayada number 1 number 2 waxaa Ethereum meeshaan marka iska bedelaan mar walba hadda XRP ku jiro Ether ku jirto oo USDT ah afraad halkan waxaa ku jiro BNB koonka waxaa iskala Binance marka sidaas ay marka koonanka u kala sareeyaan halkan soo gashay fear and greed waa kana badanaa ku sheega cabsida suuqa ka jirta maantana 45% ayuu maraya marka xoogaa cabsida way sareysaa suuqa marka website-kan waxaa ka ogaanaysaa xaaladda suuqa kala socota sidoo kale website kale jiro oo asagana waxaa la kan kale Cointelegraph dhacdooyinka badanaa lagu daabacaa ugu badan ee wax walba oo suuqa ku saabsan hadda maanta waxay ka hadlayaan waxay ka sameeyeen adeegska muhiim camal waaye marka Trump siyaasadiisa iyo cryptoda iyo sida uu wax isugu dhex wado waxyaabahaas waa wararka ugu weynka Ethereum ayadana oo maalmahan ba iyadoo warbaahinta ay haysata Ethereum waxaa la leeyahay meel sare ku socota inkastoo aysan ahayn wax boqolkiiba boqol ah marka mar walba waxaan usoo daabacaa dhacdooyin sida halkan ka arkaysiin 2 saac kahor 1 saac kahor wararka ugu dambeeyey ee cryptoda ku saabsan hadday newska cryptoda u baahan tahay dadka fundamentalka ah aa tahay waxaan rabnaa marka inaan wax yar ka sheego sida ChatGPT uu kaaga caawin karo inaad baratid ama aad si fiican u dhex gashid cryptocurrencies waxaan kaaga baahan yahay horta inaad marka hore waqti gelisid crypto waxa ugu muhiimsan dhowr marna oo ka hadalnay waxyaabaha qofku inuu marka hore ogaado ay tahay markii aad horta xoogaa aad dhex gashid cryptoda iyo sida ay u shaqeyso coinska la maalgashanayo waxa ugu muhiimsan max supply waxa la dhahayo iyo sidoo kale white paper iyo kuwo kale oo badan oo muhiim ah iyo mashruuca koonka hadda waxaan fiirinaynaa ChatGPT inaan weydiino white paper waxa uu yahay halkaana wax ku qoran ChatGPT wuxuu kula wadaagayaa white paper meeshaan fiiri waa maxay white paper marka la joogo cryptocurrency anaa iisoo koob ana waxaan diidaa qoraalka useed u dheereeyo marka wuxuu dhahay white paperka marka laga hadlayo crypto waa documenti sharaxaya u dhahay ama sharaxaad ka bixinaya mashruuc cusub oo blockchain ah ama crypto ah waxaana loogu talagalay in la fahamsiiyo dadka wax ku maalgashada investorska ama isticmaalo kasta sida uu u shaqeynayo mashruucan maxay tahay marka ujeedada iyo sida loo hirgelin karo white paperka waxa uu ka koobnaan karaa ayuu dhahay hordhaca mashruuca sida loo xalinayo ama sababta loo sameeyey sababta macnaha koonka loo sameeyey ujeedada laga leeyahay farsamada mashruuca technology sida blockchainka uu u shaqeynayo teknolojiyadda iyadoo la isticmaalayo teknolojiyadda lambar 3 waa tokenomics sida tokenka loo qaybiyo qiimaha iyo isticmaalka roadmap Soomaalida aad u taqaana laakiin anagu siyaasad ahaan aan garanayna marka wuxuu dhahay jadwalka hirgelinta mashruuca kooxda mashruuca cidda ka dambeysa mashruuca faa'iidooyinka iyo khataraha marka faa'iidooyinka mashruuca uu leeyahay koonkan iyo khatarta koonkan uu wajihi karo maxaa laga filan karaa maxaase looga digaya tusaale haddii mashruuc uu yahay mid lacag cusub sameynaya token cusub white paperka ayaa sharaxaya waa maxay lacagtaas sidee loo isticmaalayaa iyo sidee u shaqeynaysaa ujeedada ugu weyn marka waxay tahay leeyahay in dadku ay si wacan u fahmaan mashruuca kahor inta aysan gelin ama isticmaalin haddii
marka waxay muhiim u tahay marka inaad ChatGPT kaashatid inkastoo ChatGPT asriifta soo aruurinayo xogihii ugu dambeeyay iyo waxyaabihii laga qoray iyo ChatGPT sida u shaqeeyo dadka badanaa kale way fahamsan yihiin marka meeshaan ujeedka ugu weyn waa in aad si wacan u fahamto mashruuca ka hor inta aadan gelin wax badan ka caawinaysa macnaha lacagtaada inta aadan marka hore koonkan aadan maal gashan white paperkiisa markaa akhrisid wax badan oo koonkan ku saabsan oo ogtahay marka adaa go-aanka iskale inaad maal gashatid in kale muuqaalka marka intaasaan kusoo koobaya wixii kale aad rabtid inaan kasoo hadalno ama cryptocurrencies iyo aqoonteeda ku saabsan nagula soo wadaag karto communitiga sidoo kale haddii aad u baahan tahay casharo free ah oo cryptocurrencies iyo sidoo kale forex ah waxaad ka heli kartaa youtube-keena oo my exchange wamaasantihiin sidoo kale tiktok-keena soo follow gareeya si aan u gaarno targetkeena 20,000 ee bishaan